kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelan doono gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi runtii taabid ooga mahad celinaynaa aqalka dowladda hoose gaar ahaan xafiiskiisa inaanu interview kula yeelano interviewgaasna waxaa wax kaga weydiin doonaa arrimaha fara badan oo dhinaca amniga dhaqaalaha canshuuraha iyo weliba siyaasadda guud ee gobolka oo ay ku aadan tahay meeqaamka gobolka banaadir iyo runtii shirarkii dhowaan ka baaqday ee nabadeynta iyo wadatashiga ahaa wakhtiga la qabanayo iyo sababaha ay u baaqdeen mudane taabid gordhow ayaan u tegi doonaa haddii alla idmo waxaana waraysiga aan la yeelanayo uu ku saabsanaan doonaa muddadii sanadka ku dhowaadka ah abriil ilaa iyo wakhtigan waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii aan u qabsoomin arrimaha howlaha horyaalla gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid cabdi waa tahay gudoomiye xafiiskaaga inaad nagu soo dhaweyso aadaad ugu mahadsan tahay maanta interview hon cable t v ay kula yeelato mudane taabid barnaamijkeena waa soo furannay dabcan waana kaaga mahad celinaynaa waxaan hore usii gelaynaa interviewgii ama waraysigii adoo waktigaagana iyo fursadaada kaaga mahad celinaynaa waxaan kaaga bilaabayaa arinta kabtanka waxaa jira cayaaryahan faranjeska toti la yidhaahdo oo roma u cayaari jiray hadda cayaaraha ka fadhiistay cayaaryahankaas waa cayaaryahanka keliya ee kabtanka marka uu xirto aan laga qaadin oo la baxa dad badan waxay leeyihin marka 14 Oktoobar qaraxi dhacay gudoomiyuhu si fiican uu manage gareeyay kaalin fiican uu ka qaatay role fiican uu ka qaatay maalintaasuna kabtanka xirtay kabtankan macnaha u xirata maxay goorma sadhigaysaa waad mahadsantahay marka waad ku soo dhawow aqalka dawladda hoose waa idin mahad celinaya marka xiga runtii ma dhahaya aniga kabtan laakiin horta runtii waxaan wax yar dib u laabto arinta 14 Oktoobar aan maareynta waxa la ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa qayb weyn ka qaatay dadka Muqdisho gaar halkan jooga iyo qof walba Soomaaliyeed oo meel kasta jooga dareenka wada shaqeynta gurmadka iyo wixii laga qabtay Soomaaliya oo dhan baa wada sameysay anaguna qayb baan ka ahayn waxaana sharaf noo ahayd runtii inaan isgarab istaagnay midda xigta aan calaamadan ay ku qoranta 14 Oktoobar anigu waxay astaan iigu tahay kuna xasuusanaya dhibkii meesha ka dhacay waxbaa noo qorshaysan marka noo qorshaysan aan taalada aan sameynayna insha Allah kadib ayaan ku sheegi doonaa munaasabada ay leedahay iyo waqtiga ay ku ekaan doonto laakiin xusuus bay ila taarinta haddii even teramkaaga ama waqtigaaga ku dhamaado gudoomiyenimada la baxaysaa sida tootin soo dhigaysaa xusuustaas markastaba horta wayna la noolaan doontaa xusuustaas qofka Soomaali waa la noolaan doontaa marka wixii xusuus oo wanaagsan waa haysan doontaa waa tahay waxaan gelaynaa marka waraysigayga intaas waa kaftankii dhowaan shir ballaaran oo wada tashiga iyo nabadeynta gobolka banaadir ayaad iclaamisay 7 ilaa 8 shirkaasi waa u baaqday sababaha ku baaqda maxay tahay waa maasantaa runtii waxaan u maleynayaa shirka waxaan ka hadlay maalintii ay ahayd 6 bisha oo aan sheegay in shirka dib u dhacay arrimo caqabado farsamo oo soo wajaha awadeed marka insha Allah farsamadahaas waa noo dhamaan rabaan waana la qaban doonaa shirka muxuu ahaa marka shirka ujeedadiisa shirku xaqiiqatan wuxuu ka hadlayay shirka sida magaciisa uu ahaa waa wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka banaadir oo ay asaas u ahayd in laga tashado loo nabadeyn lahaa gobolkan waxaa dhacday aragti aan ka aruurnay degmooyinka 14 degmo oo loo bixiyay aragti wadaaga muqdishooda in lagu soo bandhigo aragtida in looga hadlo nidaamka darisaynta iyo sidoo kale ugu dambeyntii in looga hadlo horumarinta gobolka banaadir oo wax kasta soo hoosgalaya marka inta ayuu ku saabsanaa insha Allah waana la qaban doonaa waa tahay dad waxay leeyihiin gudoomiye taabid maadaama uu nin dhalinyaro yahay mustaqbal fiican ku leeyahay siyaasadda wuxuu isku waday maamul goboleed madaxweyne inuu isku calaamad saaro arrinta ka war waa horta runtii waa mahadsantahay dadku aragtidooda waa ixtiraamaan dadka aragtida ayaga iska leh laakiin aniga waa ka hadlay shirku wuxuu ku saabsanaa dadkuna maalintaas ay shirka arki doonaan nabadeynta iyo horumarinta gobolka banaadir hadda goorma la qabanaya insha Allah dhawaan waa soo sheegi doonaa hadda Allah waa tahay waxaa la leeyahay arrimaha nabadgelyada oo kaleeto maalin dhaweyd waxaa tiraha lagu wareejiyo nabadgelyada haddii lagugu wareejiyo masalada waad ka fiicnaanaysaa hay-adaha amniga hadda gacanta ku haya sida nisa iyo booliska iyo gobolka banaadir ma ka fiicnaanaya horta mar kastaba ma ahan aan keliya qof wax lagu wareejinayo horta runtii waxaan ka hadlaynaa waa masrax jira oo ah golaha amniga ee gobolka banaadir aan wada shaqaynta taalla inay lahaato mid la isku kaashado hadday noqon lahayd heer gobol iyo heer qaran oo la isku kaashado laakiin ugu dambeyntii marka ay tahay heer gobol nidaamkeeda iyo isla xisaabtankeeda iyo wajiyadeeda in wada shaqayn guud laga sameeyo hadday tahay midda gobolka iyo midda qarankaba laakiin haddii iyadoon weli caasimadii shuruucdeedii iyo nidaamkeedii waxaydan la samaynin haddii maamulka gobolka banaadir nabadgelyada lagu wareejiyo maxay u muuqanaysaa runtii horta waxaan moodayaa in dadku waxaad moodaa in laba arrin oo xoogaa confusion uu ka dhex jiro arrimaha maamulka caddayntiisa iyo taa waa halkeeda laakiin waxaan ka hadlaynaa amniga wada shaqayn waaye wuxuuna waajib ku saaran yahay hay-adaha hadday yihiin heer qaran iyo heer gobol inay ka wada shaqeeyaan mar kastaba sidii looga shaqayn jiro baa looga shaqaynaya waa tahay dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran 2 gobol iyo ka badan in ay israaci karaan haddii federaalka la yiraahdo gobolka banaadirna waa hal gobol gobolka banaadir muxuu yahay meeqaamka ama waxa uu qaadan karo federaal ahaan waxa uu qaadan karo ee ku qorshaysan maayar ahaan
muxuu noqonayaa waa maasanta horta taa ma rabo inaan hor dhaco sababtoo ah aan horta waa maqaamka magaalada muqdisho waa dastuuri wuxuuna hor yaallaa labada gole aan xeer gaarna waa laga soo saaraya taa laakiin macnaheedu ma aha in dad gaar ay ka soo saarayaan waxaa iska leh dadka ee gobolka banaadir xuquuqda ka maqanta inay aragtidooda dhiibtaan inay fikirkooda dhiibtaan aan ugu dambeynna maadaama ay dastuuri tahay la caddeeyo caddaynteeda marka waxaa talada iska leh shacabka waxaa talada iska leh maamulka gobolka banaadir waxaa talada iska leh hay-adaha dawliga hadday noqon lahayd fulinta ugu dambeyntiina ay ku dhammaanaysa hay-adda sharci dejinta taa marka macnaheedu waxay tahay sharci dejinta maadaama ay soomaaliya oo dhan ku dhan yihiin haddana saa darteed aragtida dadka gobolka banaadir ku nool iyo sida ay la tahay waa la horgeyn doonaa insha allah waa tahay dadka shacabka soomaaliyeed aaday kugu hanwen yihiin taabid ahaan muddo badan guddoomiyaashii kaa horreeyey kuma aysan guulaysan inay maqaamka gobolka banaadir ay soo celiyaan laakiin hadda markaad aragto aragtida bulshada taabid iswan waxaa la leeyahay waa ninka maanta soo celin kara maqaamkii aragti siyaasi ahaan muqdisho maanta kuguma horeyso xilkeeda muddaad soo haysa waxaad ahayd xafiiska agaasimaha guud waxaad ahayd madaxtooyada siyaasadda waad ka soo shaqaysa nidaamka uu muqdisho lala rabo lala damacsan yahay marka la isweydiiyo waxaa laleeyahay matan adis ababa caasimadeeda oo kaleeto federaalka dowladda hoos imaanaya matan london oo maayarka uu la shaqaynayo dadku baladegaan soo dooranayaanba matan toronto matan barliin maxaad is leedahay fikir ahaan waad ku hogaamin kartaa muddada aada noo joogto gobolka banaadir inaad arrinta gobolka banaadir maqaamkeeda iyo soo celiso waad mahadsantahay horta runtii dee aan xuquuq ka maqan 3 milyan oo qof keenisteed horto aan waa muqadas waana wax waajib qof walba inuu qabto laakiin haddana taa waxaa la socotaa waxyaaba maadaama ay yihiin aan dastuuri ay labada gole hor yaalaan haddana guddigii dib u eegista dastuurka ee barlamaankii sagaalaad ee hadda lasoo dhaafay ay ka soo shaqeeyeen ama options ay ka wada hadleen laakiin ma wuxuu qof leeyahay ama guddi leeyahay ama laba ay leedahay aragtidiiba annaga ummadda Soomaaliyeed u bandhignay gaar ahaan dadka muqdisho ku nool aragtidoodii baan soo bandhigi doonaa dhawaan insha Allah waata dhinaca kaleeto arrimaha humanitarianka ama bini aadanimada waxaa tahay guddoomiye aada ugu fiican runtii dad badanna caawiyey xanuunsan isbitaallo u diray dibadda ah arrintaasi maxaa feedback oo kaaga yimid arrintaa runtii waa yaase kugu dhiirigeliyay inaad tilaabada qaado arrintaa runtii horta waa waajib bini aadanimo oo saaran waa waajib muslimnimo waana waajib shakhsiyad oo saaran waxaan ogahay duruufta ay ku sugan yihiin qof dhibaataysan oo si guud u dhibaataysan gobolka banaadir laakiin haddana si gaar ah oo cudur uu hayo haddana qofka ay u sii dheertahay duruuf u gaara uu waxba isaga qaban karin dalka gudihiisa waxaa kuwa ayna awoodin xitaa dalka iyadoo ay taalla in wax looga qabto taa waajibna saaran kulli inaan ka qayb qaadano taa waxay marka annagana tusaysaa dadkii aan awood u lahayn haddana dalkan wax looga qaban karin ma ahan keliya wax la taaban kara inaan ka qabanno runtii ma ahan baahidu way badan tahay bugtadu way badan tahay dhib badan baa yaalla laakiin haddana annaga waxay ahamiyadda aan siinaynay nolosha qofka soo celintiisa saamaynta qofka ay ku yeelanayso bulshada midda ay ku yeelanayso iyo qofka waxa maanta uu u baahan yahay lala garab istaagay inay waajib tahay waxaa nagu dhaliyey bini aadanimada islaamnimada soomaalinimada iyo damiirnimada ee shakhsiga qofka bini aadanka ah dadka alxamdulilah ilaahay ina waafajiyey inaan dalka dibaddii u qaadno oo maamul gobolka banaadir uu ku guulaystay ee la qaaday waxaa sharaf noo ah runtii annagana guul noo ah waxa aan ka hadlayna waa nolol qofkeeda ah iyo soo celinta rajada qofka qaarkood ayaga soo caafimaaday soo laabtay alxamdulilah qaar waa hadda waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa ugu horreeyna soo noqon doonaan laakiin hadda kuwa soo caafimaada oo dalka gudihiisa wax looga qabtay seenabere baa ka mid ahayd oo alxamdulilah maalin liitaan arkay oo buro laba meel laga qalay marka waxaan ka hadlayna waa qof noloshiisa iyo rajo qof in la soo celiyo taasoo saameyn ku leh bulshada qofkaasoo bulshada wax tari doona waata aad arrintaas aadaan kaaga mahadcelinaynaa laftarkeenna waana kugu bogaadinaynaa maalintii aad timid waxbaad ballan qaaday habeenkii halkaan aad ka qudbeynayso kugu horreysay waad xasuusataa xataa labiska aad gashanay ballanqaadyaad samaysatay inaad biyo nadiifa iyo maaragtay muqdisho heli doonto inay waxbarasho lacag la-aana la heli doono in amniga wax laga qaban doono in la iskaashan doono in gobolka banaadir arrimihii maxaa kaaga qabsoomaa islaada horta runtii mar kastoo qorshe lala yimaado waa xaqiiqo in qorshaha dhammaantood ay wada dhammaystirmin laakiin qorshaha mar kasta uu leeyahay higsi fog iyo uu leeyahay fulineed wixii noo soo qabsoomay hadda intii aan soo joognay 10 abriil ilaa iyo sanadkii soo dhamaanayay 2017 wixii oo inoo qabsoomi waayna waxaan rajaynaa inaan qabanno sanadkan bilaha ugu horeeya haddaan tusaale yar ka soo qaato ballanqaad badan oo aan sameynay way jirtaa laakiin maxaa inoo suurtagalay maxaana ku guulaysanay haddii ay tahay waxbarashada qayb baan ka qabanay haddii ay tahay adeegyada asaasiga qayb baan ka qabanay haddii ay tahay caafimaad qayb baan ka qabanay laakiin waxa ugu weyn runtii aan qabanay waxay tahay kalsoonida shacabka waxaan qabanay bulshadu inay noqoto inay muujiyaan dareen lahaasho oo ay ka mid noqdaan bulshada qaybta leh tusaale ahaan haddii qofka uu bilicda magaalada dhaliil ka qabo
ama waxqabadka magaalada uu wax ka qabo annagu waxaan alxamdulilah wadajir ugu guulaysan anagoo kaashanayna dhammaan bulshooyinka ku nool gobolka banaadir in qof walba mas-uuliyaddiisa uu qayb ka qaato uuna aamino inuu waxaan asaga u leeyahay waxa ugu weyn dadka aan gaarsiinayna waxay tahay annagu waxaan nahay adeegyaal dadkaan u adeegnaa adeega dadka aan gaarsiinayna waxaan ku gaarsiin karnaa kaliya dadka wadajirkooda waan ognahay magaalada muqdisho budgetkii ku filnaa ma haysato waa xaqiiqo waan ognahay magaalada muqdisho awooddii itaalkii ay lahayd ma lahan waan ognahay magaalada muqdisho duruufo u gaar baa jira laakiin waxaan ognahay rajadu inaysan yarayn soo noolaynta rajada ayaan dadaalka saarayna iyo bini aadanka sida loo abuuro waxaan ka wadaa micnaheedu abuuradda bini aadanka oo ah qofka in lagu abuuro dareen wadaniyadeed in lagu abuuro dareen iskaashiyeed iyo ugu dambeyn in lagu abuuro dareen riyada magaalada muqdisho la rumayn karo lana suurtagelin karo taabaa noo suurtagashay waana ku socotaa alxamdulillah way noo waxaan ku qabsoomina waxaad samayn waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda waata arrinta budgetka soo hadal qaaday gobolka banaadir dhinaca maaliyadda wuxuu leeyahay 15 boqolkiiba maalin walba waxda codsato wasaaradda maaliyadda waxda ka codsatay in 10 lagu daro 5 la gaarsiiyo arrinta waa laga diiday sababaha lagaaga diiday waxaa la sheegaya inay tahay la xisaabtan macnaha xisaabtan la'aan gobolka banaadir maaliyaddiis aanay xisaab celin samaynin arrintaa ka war waad mahadsanta horta runtii ma dhahay waa la diiday oo qofna ma aysan diidin annagu waa qorshe waxay ahayd aan hor dhignay aan golaha wasiirada oo aan ka codsanay marka horta diidis ma dhahayo oo lama soo diidin aan haddii ay tahay aan budgetka la xisaabtankiisa iyo miisaaniyadiisa gobolka banaadir waxaa runtii sharaf noo ah annagoo joogno aan 3 bilood ka yar inaan aasaasnay oo suurtagelinay aan maamulka miisaaniyadda dadweynaha ama public finance management oo weli leeyahay financial management system kaas oo suurtagelinaya in uu lahaado waa yani wax transparency isla markaasna aan automated ah oo aan manual ahayn taa macnaheedu wuxuu ahaa kow in la helo miisaaniyad ummadda ay u wada jeedo aan qarsoonayn oo aan soo bandhigno aan baxda saxaafadda la wadaagnay saaxiibada beesha caalamka la wadaagnay dowladeena qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka la wadaagnay iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan tusnay inuu budgetkeena sidan yahay waxa ina soo galana cad yihiin waxa inaga baxa cad yihiin waxa taa dheer waxaan ugu talagalnay waxa ugu weyn waxay tahay la dagaalanka musuqmaasuqa la xaqiijiyo maamulkeena inuu yahay maamul ka fiyow ka caafimaad qabo musuqmaasuqa taas oo aan ahayn hadal laakiin ficil ah wax la taaban karo systemkina aan dejin maxay xildhibaanada qaar marka ugu doodaan inaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo maamulka gobolka banaadir ba aanay soo celin wax xisaab celina xildhibaanada qaar wada aragtaan malaynaya maxaa dooda keenaya runtii aniga maanan arkin doodaas laakiin wax la soo celina ma jirto haddii aad hadda u baahatid online baa ku helaysaa oo la ogaan karaa waad heli kartaa waa tahay arrimaha nadaafadda gobolka mar baad bilowday olole aad u fiican runtii 7 maalmood iyo maqan adiga laftiga gacantaada ku xaaqday dadka dhex gashay bulshadii samaysay haddana waxaa moodaa in maalmahaas kadib aan la samaynin oo nadaafadii magaaladu ay aad u liidato 7 maalmood ay ku ekeed hawshaadu mise baleynaa jira qorshe ah horta waad mahadsantahay horta intaa kuma ekayn oo wuu socdaa aan maalin walba oo khamiisa u dambaysa bisha mar walba qabanaataa khamiistii hadda u dambaysa baan fulinay oo aan ka fulinay jaamacadda ummadda soomaaliya halkaa aan tagnay aan ka fulinay sidoo kale isgoyska sanca isgoyska afar darjiino ilaa aan soo gaarna liido oo dhammaan ka qayb qaateen shaqaalaha dowladda hoose oo dhan iyo gobolka banaadir taa way socotaa oo bil walba waa la qabtaa laakiin haddana waa run nadaafaddu iyo nadayntu magaalada wax sahlan ma aha wax habeen iyo maalin iyo bilo ku imaanaya maaha wax maamul kaligiisa uu qaban karana maaha laakiin waa wax qaybteeda ay kaga aadanta hadday tahay dhaqaalaha codsiga dhaqaalihii aan codsanay qayb bay ka ahayd way ku caddeed budgetkii aan codsanay nadaafadda qayb bay kaga caddeed oo ah qaabkii aan agabkii iyo wixii loo baahnaa lagu qaban lahaa waxa ugu weyn oo ayadana taa qaybka ah waxay tahay degmooyinka haddana ay wadaan dadku in lagu baraarujiyo laftirkooda inay qayb ka noqdaan in nadaafaddu ay qayb ka sameeyaan laakiin annagu waxaan markasta diiradda saaraynay qofka waxa laga qaadama lagu celiyey oo macnaheedu canshuurta qofka uu bixiyey ku celinteeda waxaa ka mid ah nadaafadda marka saa darteed hanaankii maadaama aan wadno oo canshuurtii hadda ay canshuurta beriga dowladda hoose keliya aysan qaadin oo wasaaradda maaliyadda ay qaado ayaa keenaysa in aan muwaadinka waxa uu mudnaa lagu celin laakiin qorshaheena waxa uu yahay nidaamka nadaafadda hadda aan u wadno ee bilaha siduu ololahaas ahaa waa sidiisa marna ma istaagin mar kastana waa wadnaa laakiin haddana inay ku dhinac socoto nidaamkii waajibaadka saarnaa qof walba inuu sameeyo gudoomiyaasha degmooyinka canshuuray ka qaadaan deegaanada iyo ganacsatada iyo guryaha iyo lacagahaasi waxaa la yidhahdaa degmadaasi ku haraan oo maamul gobolka banaadir mararka qaar ma soo gaaraan arrintaas ka war waad mahadsanta horta canshuur markay qaadisay sharci bay leedahay canshuurta la qaadi karo oo sharci leh baa jirta maaha gudoomiye degmo keliya wuxuu qaaday canshuurta waa dowladda hoose iyo nidaamka loogu talagalba canshuur lagu qaadaa haddii canshuurta uu sharciga qabo ee la qaadayo way soo gaartaa gobolka banaadir maamulkana waa wax uu ka warhayo laakiin waa lagula xisaabtana degmooyinka gudoomiyaasha isla xisaabtan la-aan ma jiro isla xisaabtan mar kasta wuu jiro waata dadka ku yidhaahda maalintii xilka lagu magacaabay inkastoo markii ugu horreysay aad samaysay dad aan gobolka banaadir
ka soo bixi jirin inay guddoomiyaal ka noqdaan oo ay ahayd arrin runtii lala yaabay oo guddoomiyaasha ka horreeyay ku dhiiran haddana waxaa laleeyahay guddoomiyaasha dhammaantood waa qurba joog maxaa kuu diida kuwa gudaha waad mahadsantahay horta dhammaantood maaha qurba joog qayb ka midaba ah qurba joog laakiin haddana waa u badan yihiin laakiin waa dad uma badna runtii laakiin waa dad oo halka dalka joogay oo muddo joogay haddana anagu Soomaalida dhaqanka aan leenahay waa ka duwanahay dadka kale xaqiiqatan taas dhaqanka aan leenahay oo cad waxa ay tahay qofka xataa hadduu dalka dibadii ku noolaa si toos ah sida dadbanba bulshada ugu xirnaa qayb buu ka qaadan jiray maahan dalka oo kale dalka kale oo Soomaali dalkood marka tagaan aan dib u soo eegin ama xiriir aan la lahayn xiriirkeena joogto ahaa waan la soo laaban jiray marka Soomaalida way adag tahay qurba joog in la yiraahdo marka waa dad islaha mar kastaba marka saas ku xulatay waa tahay guddoomiye tarsan markaan ka soo bilaabno degmada gobolka Banaadir soo maray wuxuu dhisay 23 kilomitir oo shidada madaala 17 kilomitir sameeyay Mungaab oo adiga gudoomiyihii madaala ka horeeyay ahaa isagu fiisha gobolka dhisay oo hadda aan fadhino maanta aqalka dawladda hoose adiga maxaa lagu xasuusan doonaa maxaa laga qorayaa inaan noo dhisayso horta runtii anagu wax badan baa horta rajeynayna laakiin midda ugu muhiimsan lagu xasuusan doono oo haddan aan wadno waxay tahay dadkii isticmaal lahaa inaan dhisno dadka ayaan dhisnay waa qorshe ka duwan marka halkii dhismayaasha iyo wadooyinka la sameynaya adigu dadka dhisaysaa muhiimaddu waa dadka waa runtii aragti fiican waaye gobolka Banaadir xuquuq wuxuu ku leeyahay aqalka sare inuu xubno ka yeesho ma ugu maqanta xaqiiqatan waa sida aan sheegay 3 milyan oo qof horta matalaadooda waa in la helaa muqadas taas laakiin haddana shuruucda iyo maadaama ay labada gol hortaalo waa sida aan sheegay aragtida aan wadno ee ku aadan iyo hay'adaha dawladda ee dastuuriga ay sii mari doonaan insha Allah waa kala hadashataa waa waajibta waa martay wata arrimaha markaan galno dhulka waa arrimaha ugu khilaafaadka badan guddoomiyaasha ka horeeyay waxbaa lagu tilmaamaa adigu mislada ma lagu eedeyn karaa wax dhul ah waa mahadsan tahay walaal horta runtii dal kastaba oo ka soo laabto duruufaha dagaal iyo dhibka jiro mar kastaba issueska ugu weyn ee dalka qabsado waa arrimaha dhulka iyo guryaha la isku haysto badanaa way dhacdaa dalalka dib u soo laabtay dalalkaas ay si baaxad leh ay runtii u soo wajahaana waa dalal muddo kooban dawlad la'aan ahaa ama ka soo qabsan kara ama runtii haddii la yiraahdo dib ha loo baaro ama track record ha la sameeyo wax la soo heli karo waxaan ka hadlaynaa sanooyin badan oo aan adduunyada kale hore loo soo arag dal intaas soo maray waad qiyaasi kartaa duruufaha ee record marka yiraahdo ama kayd ama wax la halmaala inta ay la egtahay laakiin waxa oo ugu weyn marka aan leenahay dad hadalkii baan u laabanay dadku baan dhisaynaa waxa ay tahay dhisida dadka ayaa qayb ka qaadanayso in dadku waajibaadka saaran ee ah kan cadaaladda kan garsoorka kan hanti isu celinta kan dib u heshiisiin dadku inay inta wada fahmaan kuna baraarujino taa waxaa keeni kara dad mas'uuliyiin ah oo qayb weyn ka qaata in ay si yani oo dhow ula shaqeeyaan gudiyada ka jira labada gole ee baarlamaanka ee hanti isu celinta dib u heshiisiinta ka mid ah taa ayaa qayb weyn ka qaadanayso inaan qayb ka qaadano nidaamkii farsamadii iyo wixii loogu talagalay maamulka gobolka Banaadir dawladda hoose waa u diyaar caasimadda marka la yiraahdo waa caasimaddu waa isha wadanka waaye waa meesha diblomaasiyiinta ama laga eego ma jira wax si balaan ah oo noo dejiso caasimadda aad ugu tala gashay bilicdeedii sharafteedii karaamadeedii lagu soo celiyo waa mahadsantahay horta caasimaddan waa hooyadii Soomaaliyeed waxaan ognahay inay astaan u tahay dhamaantiin inoo tahay astaan ama identity ay inoo tahay waa in hor yaalla master plankii magaalada qorshihiisa waan haynaa laakiin haddana waxaan ku celinay hadalkii ahaa Muqdisho waxa lagu salaabtay iyadoo aan diyaar ahayn macnaheedu hadday noqon lahayd imkaaniyaadkii loogu talagalay ama facilitieska loogu talagalay laakiin meesha aan ka nimid haddii ay tahay sanad ka hor haddii ay tahay dhowr sano ka hor tusaale ahaan waxa iga horeeyay gudoomiye hore iga horeeyay howl buu qabtay mid baa kasii horeeyay howl baa la qabtay qofba meel buu ka soo qabtay marka maanta waxaan isleeyahay waxay joogtaa meel hore looga sii socon karo riyada aan rabno iyo muqdishada aan rabnana oo aan ku fikirnaa hadday tahay mid ummadda kala qancisa dadka martida inoo oo halkan imaaday ee diblomaasiyiinta ah iyo dadka ku dhaqanba iyo maadaama ay tahay caasimadii Soomaaliyeed in ay gaarto meesha ay tahay qorshaheeda iyo cilmigeeda intaba waa oon haynaa waa tagtay qurbaha waa tagtay caasimaduhu waxay leeyihiin isbeysyo iyo jardiinooyin iyo dhul aad u qurux badan islaamiyo waaweyn muqdisho meelihii jardiinooyinka u ahaa waa la dhistay laamiyadoo dhan waa la soo wada celiyay hadday sidan ku sii socotana waxaa dadku ka shaki qabaan in laamiyada waaweyn bartankooda laga dhisto wax arrimahaas maxaa wax looga qaban lahayn waa horta runtii inta aad sheegaysid waa wax dadku runtii oo ay wada arkayaan dhammaantood balse waxaan ognahay waa ka horeeyeen adiga waa ka horeeyeen balse waxaan wada ognahay kulligeena waa hadalkii baan ku laabanaya in dadka la dhisa wax muhiim waaye oo aragti badan laga qaata oo la fahmaa qorshahaasna maaha qorshe qof kaliya ku kooban laakiin dadka dhan waa inuu wada gaaraa magaalo sida muqdisho oo kale waa magaalo u baahan inay fido
maadaama bulshadeena ay badatay markastana horumar dheeraad ay sameynayso aan adduunyada kale way jiraan magaalooyin oo saas oo kale cariiri u ah oo dhibaato badan ay ka dhacdo laakiin haddana muqdisho waxay hiigsanaysaa isbedel oo ay dadkeeda sameeyaan kuna sameeyaan hanaan xasilan hanaan la iswada aqbalsan yahay iyo hanaan sharciga uu shaqeynaya ka oo dhammaantood inay horseedayo muqdishada aan rabno dhowaan waxaa qolo IDP-yada ayaa waxaa si xun maaragtay maqan adigu waxaa laga yaabaa maanta madaxdeenu go'aamo aysan iyagu soo saarina waxaa gaara dadka ka hooseeya marka waxaa loola dhaqmay alaabtoodii dugsiyadii qur-aanka iskooladii wixii waa laga jijibay dowladda maxay halkaa ka damacsan tahay waa mahadsanta horta annaga maamul gobolka banaadir arrintaa waan ku baxnay oo dadkii waa la qaybsanay runtii dadku inkastoo markii horeba laba meel iyagoon loo digin weliba dadkii marka hore laba meel la kala geeyey qaybtii la geeyey bay dad ka soo laabteen oo yidhahdeen waa nagu fog tahay saa darteed meesha ay ku soo laabteen uma diyaarsaneen oo waxay ahayd meel bannaan kow annaga waxaan xaqiijin dadka horta meesha hadda ay imaadeen in dadkii lahaa laga kireeyo dad baa lahaa oo waa private dad baa iska lahaa goofaf bay ahaayeen in dadka laga kireeyo la xaqiijiyo in dadkan uusan dhib ku dhicin oo loo kireeyo oo 4 sano iyo bar baan kireynay si aan xadgudub meesha uga imaan waa midda kale aan sameeyno waxay tahay aan gurmadka degdega ay ku saabsan aan agabka bini'aadanimada baan gaarsiinay haddii noqon lahayd agabka teendooyinkii iyo waxyaabahaas wax la mid ah si aan ula tacaalno xaaladooda waxaan xaqiijinay meel kale aan dejinay oo aan runtii ugu dadaalnay hay'adaha amnigana waan wargelinay qaybay nagala qaateen oo ah dadkaas tabaalaysan inaan dhib loo geysan habeenadii oo kale inta ay ka deegaamooyaan waa ka shaqaysaan waa ka shaqeynaa meel kale loo dhulka maxaa laga damacsan tahay marka gobolka muxuu ku damacsan yahay dhulka laga kiciyo dadkan dhulka horta qof baa iska leh oo maha dhul qof uu leeyahay amar maxkamadeed baa horta dhulka lagu saaro qof baa iska leh dhulka waa tahay aan u soo daadego gabagabadii waraysigayga inkastoo su-aalo yaro kaftan ay ii dambeeyaan dad badan waxaa la leeyahay ama aada magaalada ugu jirta in adiga iyo madaxda kaa sarreysa aad isqaniisantihiin sida ra-iisul wasaaraha arrintaa maxaa ka jirta waxba kama jiraan taas taa waa beeninaysaa waxba kama jiraan waa warsuuqeed taas waxba kama jiraan oo hadda waxaa leeyahay waxaa ka joojiyay shirkii ra-iisul wasaaruhu ahaa waxba kama jiraan taas waa tahay maxaa ka jira marka in maanta Soomaaliya madaxnimadeeda meeshii la rabay in madaxweynuhu ugu awood bato ra-iisul wasaaruhu ku xigo governorka wasiirada ku xigaan speakerka ku xigo wasiirada golaha fudgudda fulinta garsoorka governorka uu awood badan ku yeesho dalkii oo isaga governorka ah madaxdu inay si hoose u kala awood badan tahay agaasimaha inuu ka awood badan yahay gobernatoruhu inuu ka awood badan yahay ra-iisul wasaaraha inuu ka awood badan yahay madaxweynaha oo madaxweynuhu loogu tabaryar yahay arrintaa maxaa ka jirta horta runtii dadku ma aqaan awoodda horta ay fiiriyaan laakiin annaga waxaana saaran dhammaanteena waxaana saaran dadkan inaan u adeegno waajib baana saaran awoodda loo baahan shacabka la rabo inay ka soo dhexbaxdo awoodda cidda iskale waa shacabka waxaa iskale muwaadinka awoodda iskale isaga ayaa sax inuu nala xisaabtanba dhammaanteena awooddu ilaahay ka sokow shacabka iskale annagu waxaana tahay inaan wada adeegno qof kastoo ka mida dowladdana waxaa saaran waajib inuu ka adeego hay-adaha dowladda kala duwan waxaa saaran waajib ah inay dadku u adeegaan dadkana u shaqeeyaan awoodduna waxaan aaminsanaha waa mid shacab ka soo baxday dhammaanteedna hagta taas baan aaminsanahay waa tahay gabagabadii marka su-aalaha kafta kaa rabeen waqtigaa firaaqada maxaa samaysaa runtii waa haddii aan waqti firaaqa helno laakiin anagu badanaa waxyaabaha noogu muhiimsan waxay tahay firaaqa kasta aan helno waxaan maskaxdeena gelinaa xaqiijinaa inaan ogaano dhib meel uu ka jiro oo magaaladan qof shaksiya dhibaataysan muwaadin u baahan in la gargaaro iyo sidoo kale inaan aragna fariimaha shaksiyan aniga oo kale fariimaha dadka ii soo diraan inaan akhriyo oo aan arko يعني هدي دب وجرو هدي وناك جربه أنت بقى نكون برارجو سي أنا وحقيقيه قف كستو موادنا أو أخيرا اللي ويدين دونه dadkan igu xisaabtan doona in warkiisa ay soo gaar ama fariintiisa aan helay xagee kala socotaa marka fariimahaas runtii inta badan Soomaalidu waxay soo diraan text message soo diraan qaarna social media ku soo diraan laakiin inta badan telefoonka ay fariimo ku soo diraan iyo waraaqada oo maadaama sanduuq cabashay aan sameeyno waraaqadaha la keeno ayaa inta badan waqti ku bixiyaan aan aqriyo cuntadaada ka war noocyada jeceshahay runtii de aniga waxaan aad u jeclahay cuntada oo dalka ka soo baxda taas baan big fan u ahay cuntada soorta ambuulada canjeelada noocyadaas waxaan jeclahay cuntada dalka wadaadka Soomaaliya barnaamijka sida waa tahay sportiga soo isku teen waa isku fiican sportiga waliba laba jeerna gobolka waxaad ku qabatay kubado horyaalaad ku samaysay waad furtay kubadda cagtana waa ku fiican tahay naadiyada waddanka ayaa taageertaa aniga runtii de hadda haddii aan sheegi lahaa maadaama dhawaan aan dhis rabno naadigii dowladda hoose Minishibia taas ayaan naadiga dhisanaysaa Minishibia oo soo celin wasiirada galay maadaama hadda uu soo ku diray insha Allah ay qurbaha Yurub way farabadin waxa aan taageero Ingiriiska kale waxaan ka taageeraa Manchester United baan taageeraa dalal kalena kooxo kale ka Spain waxaan taageeraa Real Madrid waxaan maleynayaa isku xnaay laakiin England inuu kala duwanahay
waatahay su-aasha ugu dambaysan rabaa marka inaan ku weydiiyo oon barnaamijka iska soo gabagabayna anoo kaaga mahad celinaya runtii waktigaaga iyo firaaqadaada iyo fursadaada bugaagtiga akhrisaa kaybaa ugu akhris badanta runtii way kala duwan yihiin bugaagta way kala duwan yihiin kuwa soomaalida oo kale waxaan aad u akhriyaa taariikhda soomaaliya ayaan runtii aad u akhriyaa oo u baahan iyo sidoo kale waxaan aad u tixraacnaa af soomaaliga oo runtii waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulno cabdalla mansuur oo aan talyaaniga kula kulmay roma oo isoo guddoonsiiyey buug runtii aad oga hadlaya afka soomaaliga siduu qani u yahay iyo in ay tahay in dib loo xasuusto marka maadaama waajibaad uuna saaran yahay gaar ahaan aniga aan mayor ahay oo sidoo kale ayadan aan ahay aan gobernatore waxa ugu horeeya ay saaran waxay tahay taariikhdii magaalada muqdisho iyo maamulkii magaalada muqdisho ay soo martay iyo wixii soo saxmay wixii soo qaldamay iyo shuruucdeeda inaan aad aad iyo aad kaaga mahad celinaya waraysiga iyo fursadda aad home cable tv siisay runtii aadaan ugu faraxsanahay la kulankaada aad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal guud ahaan waraysiga koobnaa aan la yeeshay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabit aad iyo aadaan uga mahad celinaya fursadda uu siiyay home cable tv oo runtii aqalka dowladda hoose uu aad noogu soo dhaweeyey waa nin dhalinyaro sidaad la socotaan muddada kooban uu joogana waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin intaba waxaad ka heli kartaan waraysiga dib intaan u kulmi doonno waraysi caynkan oo kaleeta ah waxaan u mahad celinayaa naqiib iyo saaxiibkay zakariya oo dhinaca kaamarooyinka noo haya iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inuu suurto galo waraysiga aanu maayarka ugu nimid aqalka dowladda hoose dib intaan u kulmi doonno waa anigoo dul yaroo idin leh nabadgelyo